بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته وإن السلامي ملو البا جوكتان انت آن halkan ku walaalownay oo wanaaga iyo walaaltinimada aan wadaagno. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin walba kaskiisa ayuu kalaamaa marka ama qof walbaba wixii markaas uu aragtidiisa uu tahay uu ka hadlaa. Waxa kaleeto la yiraahdaa guri walba in xaaba ah oo gubta ayaa hoostaala. Waxaan arkayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, haween iyo dumar iskugu jira, rag iyo dumarba leh, oo runtii social mediaha isticmaala, barta Facebooka iyo meel walba. Waxa ay ku hadlayaan runtii aysan ahayn wax qiimo leh ama wax sharaf leh aysan ahayn, ama wax dhagaha dadka u fiican aysan ahayn, ama wax aragtida dadka u fiican aysan ahayn. Dadkan waxaan weydiinayaa horta marka ugu horeysa su'aalaan weydiinayaa 5 sano waa dadkii mucaaradka ahay, 5 years oo la soo dhaafay dowladdii ina Cabdullaahi Farmaajo u garwadeenka ka ahayd mucaarad ku ahayd. Intaad fariisatay ma isweydiiday maxaad mucaarad ku ahayd, maxaadse mucaaradaadan ku ahayn? 15 May sanadkii la soo dhaafay ayuu timid dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud. Maantay qof walbaaba oo doonaya maxay tahay dowladnimo iyo dadnimo iyo dalka dadkii uu doonaya talaabada ugu weyn oo qof walba uu ku faraxsan yahay oo dalka raba oo wax walba ka weyn waa shabaab la dagaalanka. guulo waaweynna dowladdu ay ka soo hoysay oo uga mahadcelinaynaa. Ilaah baa mahadda iska leh. kaaga mucaaradka ahay maxaad dhaantaa midkii 15 May baroorta la fariistay, oohinta la fariistay, khaylada la fariistay, habaarka la fariistay, cayda la fariistay, aflagaadada la fariistay, iyo adigu maanta maxaad is dhaantaan? Haddaabad si dhaqso ah beeshayda waxba lama siin, beesha reer hebel baa wax la siiyey, reer hebel baa dowladdii qaatay, haddaad intaa yartaad mucaarad ku noqonayso oo aad doonaysa reerkiinoo dhan garaada in lagu taxo, maxaad markii horeetaba mucaaradka u noqotay iskaga aamusi weyse? in le so far waxaad doonayso iyo waxaad diidaysa lama garanaayo. waxa aad doonayso iyo waxa aad diidayso oo aan ka ahayn kursi ayaa rabnaa. beesha aad u doodayso dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo kuraas bay ku lahaayeen, reerkaaga kuraas la-aan maysan ahayn. biyotoonina allaha ka dhiga waad haysatay, wasiir baad lahayd, xildhibaan baad lahayd, ciidanka dowladda ciidan baa kuugu jiray, guddoomiye degmaad lahayd. maxaa la qayline? waxaa la qaylinaysa ilaa soo far ma aan garanaayo. taas waa taasa. tan kale waa isla adinka gobollada dalka ee ay shabaab haysteen waa dhulkiina, waa dadkiina, waa aabbayaashiin, waa adeeradiin, waa awoowayaashiin, waa isirkiina iyo abkiina iyo awowgiina meeshaa ka imaateen. Facebook baa waxaad la fadhidaa dhul hebel iyo dhul hebel anaa iska leh, dhul hebel la iiguma imaan karo. miyaad isweydiisay inta ciidana ee halkaa ku dhimatay, kan ku dhaawacmay? miyaad isweydiisay inta carruur ah ee aabba beeshay inay dhulkaa xoreeyaan? miyaad isweydiisay inta dhaawaca ah? miyaad isweydiisay kee ayaa dhaawaca ka kici doona, kee ayaanse ka kici dooninin? ma isweydiisay carruurta agoontowday, hooyada wiilka weysay,
oo ku weyda difaaca dalka ku weysa wiilkeeda gabadha asayda qaaday saygeedii uusan u soo noqon dooninin halka iyadii carruurteeda ay ku dambayn doonaan meed isweydiisay waa maya waxaad isweydiida keliya degmadan annagaa iska leh reer hebel baa degmadan lahaan jiray heer xitaa wariyeyaasha idinka hadlaan inkastoo waayahan wariye saxa oo soomaaliyeed wariye waa kii hore raggii hore iyo dumarkii horeeto ee ama BBC-da ka shaqayn jiray ama ka shaqayn jiray radio muqdisho wariyayaal kuwaasay ahaayeen laakiin kuwan wariyayaal ma ahan fanku waa kii hore heesuhu waa kuwii hore dadkii fanka dhegaysan jiraan la hadlaya fan haddaa dhegaysan jirteen ani fanka ma xiiseeyo kolleyba qofba waxbaa ku xisay yaraanteydii haa markan yacni qofka dhalinta yarahaa oo gabadhaha yarar oo dhuucilaha oo aragteena dhuuciluhu ay iska jecel yihiin iyo dhalinyarada yaryarka iyo ka waxyaabaha la sheegsheegaya iyo raadiyaha iyo mataqaanaa okay ba maanta waxaa la yaabanahay qof dhan oo weyn oo ujeediya ka jeeda midna aan lahayn waxa aad mucaaradayseen iyo waxa aadna mucaaradaynan garan waaye maanta intaad dhihi lahaydeen hambalyo gurigii awowgay uu xoroobay waxaan aniga maanta dhalinyaro ahaan aan dheerahay oo ah wixii aan bartay horta gidigin bugaya qalimaadnaa qaadan miya kuwa qurbaha joogow qurbaha maxaa kaaga saa'iiday oo aad rabtaa dalkaaga inaad ku celiso waxaad ku celinaysaa reer hebel baa reer hebel ka xoog badan reer hebel annagoo ah reer hebel lama degayaan dadkan dhulka isku haysta marka la idiin xisaabiyo calaa boos ninkiiba 100 boos ka badan ayaa ku soo aadayso inta aad tihiin daaqsinta nin walba meeshuu daaqa waa la yaqaan tuulooyina isku haysataan markaasaa leediin tuulo hebel reerkeennaa dega tuulo hebel reerkeennaa iska leh annagaa lahaan jirnay adigu waxba ma adan lahayn raxmaynii sheegaa dad duhniga ka dilanaa tihiin dad aad u xunaa tihiin dhulkan walaalaa tihiin wuu idin deeqaa wuu idinku filan yahay wuu idinka soo haraa ninkiiba 100 boos haddii la siiyo oo isku wareeg ah wuu idinka soo haraa ka fakar sida aad ceel ku qodo lahayd ka fakar sida aad webiga kusoo jeexa lahayd ka fakar sida harooyin biyuhu ayna ka guraynin aad u samaysa lahayd ka fakar sida aad beerta u abuura lahayd qudaartuna kuugu soo bixi lahayd maanta lama joogo xilligii dowladdii maxamed siyaad barre ee dadka ka dhaadhacsiisay meel aan afgooye iyo jannaale iyo ahayn beera kama baxaan no maahan maantay raas casiirtu raas kambuun meenaysa beer ka baxaynin ma leh dhulka soomaaliya meesha wax lagu daadiyaa kasoo baxaaya dad yahow sibaad duhniga uga dilantihiin oo aadnaa dad fiican u ahayn askarta dhimatay u tacsiyadeeya kuwa nool waa mahadsantihiin dhaha dowladda in ay shabaab intaasoo gobolla ka dulqaaday iyo dadkii shacabka deegaanka iskaashanayay u mahad celiya oo ku mahadiya oo ilaahay ku mahadiya awalan allah subxaanahu watacaala mahadda u celiya allah dhaha allah subxaanahu watacaala waa mahadsantaha dhaha allah jazaaka yani ilaahay jazaaka allah yani alxamdulilah ilaahayow adaan kugu mahadinay ilaahow adaan kugu shukrinay dowladdana jazaaka allahu khayr dhaha shacabkana jazaaka allahu khayr dhaha laakiin inaa haysataan dhulkaygii gurigaygii ma aragtay ma taabatay waxaasi wax wanaagsan maahan dhalinyaro caqligiinu ha shaqeeyo hana sareeyo waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warxumo walaalkaa
dadka warxumo dadkaaga way kugu dirtaa dad kalena kuuma geyso يعني dabeecadda xun iyo warxumada ma fiicnee wanaaga ha laga wada shaqeeyo especially dhalinyaro iyo dadkaanu joojiya waxyaabaha xunka waad ku hadlaysaan ee wanaaga wax walba ka raaca. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.